بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان السلام يا دمان أمة الصومالية الميل كستو جوكتان waxaan maanta ma aragtay halkan kaga hadlaynaa ama barnaamijka uu ku saabsan yahay inaan casilayno ugaaskii beeshayada ugaaskii 19aad ee beesha Ciisaha kadib markii uu ku xadgudbay sharcigii iyo xeer hoosaadkii qowmiga ahaa ee dhaxalka ahaa ee dhaxalkii awowyadaya ahaa dhaxalkii xeerkii oo buriyay oo baabi'iyay marka shakhsi iyo sharci xeer qowniin dad lagu bulshada isku maamusho waxa qiimo weyn sharciga ayaa qiimo weyn oo lagu wada dhaqan yahay hadii la waayo waa la baaba'aya laakiin shakhsiga hadii la waayo isaga waxa weeyaan boqolaal baa la bedilaa annagoo cuskanayna xeerkii awowgaye nooga tagay waxa weeyaan in xeerku wuxuu ka qabataa saddex shay in ma aragtay boqorka beesha Ciise lagu casili karo ama ma aragtay saddexdaa shay haddii ay u buuxsanto oo saddexdaa dhibaato geysto ama saddexdaa khalad ha galo inay ma aragtay boqornimadiisa waxba ka jirin badala kow waxa weeyaan dhul oo bixiyo ama isagoo jooga dhul haddii laga qaato Ciise waa xeerkii de waxa weeyaan talabaad inuu iclaamiyo dagaal awna dad kala tashan isla markaana lagu fashilmo saddex hanti uu dhaco ama haw boobo tudan guud iyo tudan dad gaaraba saddexdii way dhaaftay de maanta waxa weeyaan dhulka la qaatay canfartu qaadatay isaga sabab ah waayo waxa weeyaan hantidii dhididkii walaalaha u soo huray haday qurba joogtahay iyo haday tahay meel kasta ee in dhulka lagu difaaco ahayd ogaasku dad gaar u isticmaal wuxuu sameeyay inuu hantidii ma aragtay dadka loogu tala galay ugu yaraan 15 qabaal oo dadka galbeedka city ku baaba'aya in lagu difaaco loogu tala galay oo qurba joogta walaalahoodii ha u soo iibisay inuu dad gaar si iyo isagu iibsayaaba mooyaan labo waxa weeyaan dagaal buu iclaamiyay isagoonan cidba kala tashanin isla markaana hantidii lagu hawlgeli lahaa jaabka ku shubto jeebkiisa ku shubto waxa weeyaan ta saddexaad hantida ma aragtay oo dhacay iska dhaaf cid kale ee taa ma aragtay danta guuda dhaafe waxa weeyaan ee dadka loo soo aruriyay dhaafe ruuxa una dhicini ma jooga akabaabigan dir dhabiya ma aragtay eeriyadeed waxa weeyaan saddexdii qodob waa buuxsantay maahina tirfiba way dhaaftayba saadaradeed ogaasku de xeerku kamid yahay xeerka la dhowrayo buu kamid yahay oo waxa weeyaan isaga laftigiisa dhaxalan awowyadaya ka dhaxalay waxa weeyaan dhaqanka yaga qayb kamida weeyaan sida isaga ma aragtay loo ilaalinayo ayaa ma aragtay xeerkana loo ilaalin waxa weeyaan haddii uu marde sidan tahay cidba ma aragtay xeer ma soo qaban kare wax aliya wixii la doonaa la fali hadda wayna lahayn si degdega waa inuu isku casilaa annaga ba casilayna waxa weeyaan aniga ma aragtay dadkii kamid aha cimaamada saaray ama ma aragtay beesha cimaamada saarta kamida waa ka tuuro sida maanta laga bilaabo ma aha ogaas hadda wayna lahayn kumanaan ogaas oo sidiisa ayman saddexdii qodob ee ma aragtay sharciga loo dhigay ee ogaasku inuu ku daadega ahayd 10 shay buu ku biirsan waxa kamida kow inuu ma aragtay dadkii kala qaybiyo inuu ma aragtay sameeyo inuu ma aragtay dadka Ciisahana qaar haw iska fogeeyo dadka qaarna haw soo ma aragtay aw ehel ka dhigto inuu ma aragtay tii hay ka dhalato isku dir
أما دتك ما أدرك تسكو على الحمقات صد وقضب كشنا وحا أدير إن وما أدرك تد عيسى قف عيسى إنه استعماله بوليس أما عيدا دولدين لقو ساقبت إيوه شرقوله هادو ديلان وما دركتي إن قرشيسان إنه استعمالات داد عيسى وحويان إن ظلميك كلا وما دركتي تاج أو جيستي وحيابا بدنو عنا اللفقي كريم وحويان ما أنت لقى بلابو haddii maad aragtay xeer haw jiro oo xeerkaana loo sheegaya aw jiro waa in maad aragtay sida ugu dhaqsaha badan haws casilaaw ka tago ogaasku meesha waayo maxay tahay intii maad aragtay ogaas lagu casilayay ama intii maad aragtay khalad waxyaabihii laga eegay waa galay muxuu yahay dama in laga wada daba khaldamaa la doonayaa marka waxa weeyaan mashaakilka yaalaba waxa weeye inuu yiraahdo kaniba aniga xigee kan iska dhaaf meel kale waxa weeyaan dadka aanan maad aragtay reerkiisa ahayn ee waliba maad aragtay reerka uu ka dhashay ogaasku aanan ahayn oo dhan wuxuu aqoonsan yahay dambiilayow wuxuu aqoonsan yahay dhibaato kasta oo timaada inay maad aragtay dadkaasi geysteen maad aragtay kuwiisa miyaa kuwa reerkiisa miyaa haddii ay maad aragtay adiga ku duuduubaan isagaa soo taagan waaraya ilaahay ayaa yaqaanada maxaan eeganaa marka maxaa la eeg marka in la isku hoos dulmanaado maad aragtay la isku waayo hadhow toolyana laga qoomamay adeer waxa weeyaan ciise waa jiraya haddii uu ogaaskani sii joogase waxa weeyaan ciise dambe oo loo yeedh ma jirto hana dhaafo cimaamada annagaa saaray waana ka qaadnay sidaa laga bilaabo haddii maad aragtay si degdeg ah ku dhigi waayena 500 ogaasoo sidiisa iman. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.